waxaan rabaa inaan idin sheego gobolka hal geesiya laga yaqaanaa intaan ogahay halka geesiyo laga yaqaanaa waa ninka walaalkiis dila ninkaas geesi loo yaqaanaa maxaa sidaas u leeyahay dadka marka la sheekaysato tuulooyinka jooga dagaal oogayaasha yaqaaneen kuwa nabadda ka shaqeeya ma yaqaaneen nabadda kuwa ka shaqeeya oo u dhagan nugul ma yaqaaneen rag hadda tiro badan oo nabad loo aasayna ma maqal rag tiro badan oo liir ayagoo nabad ka shaqeynaya ku dhinteen oo la aasay gobolkan aad ugu ma maqal waa jiraan ma sabadna laakiin dad badan oo ayagoo colaad ka shaqeynaya ku dhintay oo loo aasay waa naqaanaa kuwa la dulmiyana waa naqaanaa oo ayagoo dagaal ku jirin la dilay dhinac kasta ha ahaadeen walaalayaalow maanta meeshaan aad joogtiin iyo casriga aad joogtiin iyo cimriga aad joogtaan meeshaanu galabta geesiga nabadday u baahantaha geesiga dagaalka uma baahna jidka aan ku soconno meeshuu ku dhammaanaya inaan naqaano waa jidka aan ku soconnaa wuxuu ku dhammaanaa meeshii ay ku dhammaadeen jidadkii aad marteen ee idinkoo isla jira oo isku reera iyo kuwo kaleoo isku reera aad soomaali ku duusheen ee isku duusheen isbaabiisaan qabyaalo darteed ee keentay intaad soo noqotaan idinku inaa islaysaan ee keentay kuwa safka iskula jiraa maanta inay maalmo ka hor islaayeen dadaan run isku sheegino beenay isku sheegaan waxaan idin leeyahay walaalayaalow waa naga garaad badantihin waana naga caqli badantihin laakiin waxaan u malaynaa mushkuladaa jirta u baahan in la baaro bahasha qabyaalad la yidhaah haddii caana lagu maalaayo oo wax lagu gaaraayo oo la kala adkaanayo oo dhul la kala qabsanayo oo sharaf la kala helayo waa soo aragteen nooma dhinna nabadda ma tijaabin karnaa waa naqaanaa ragga ama lugaha go-an ama gacmaha go-an ama madaxu maqan yahay dagaalada qabiilka ku dhaawacmay dhulalka aan jooga waa la wada yaqaanaa rag nabadda u gacma go-an ma heli karnaa oo u luga go-a kuwa ilaahay uga fogaaday oo aan ogahay inaan niyadda ku wada haysaan isleediin hebel ninka leeraa meeshuu ku dhintay xumeeda meeshuu ku dhintay aad qalbiga ka wada ogtihiin oon afka laga sheegi karin ma ku bedeli karnaa kuwa aan dhahno hebel ninka leeraa meeshuu ku dhintay wanaagsaneeda oo fiicneeda ma ku bedeli karnaa waxaan ogahay intiina halkaan fadhisa oo qabiilada ka socda mid kastoo idin ka midaho waa dhibane gurigiisa tacsiya ka jirto si dadban iyo si toosan labadaba ninkii kaa dhintay nin maanta dhihi kara jihaaduu ku dhinto jannou jiraa ninkii un raganimo iska dayayo un rabo inuu warka iska leexiyo waa dhihi karaa ama raba inuu wiilal kale ku qaldo kuwa kaleu rabaa inuu qaldo say beri dagaalka u gala kaas wuxuu ninkaasu rag dhalay ayuu ahaa reerka u dhintay aawo gurigii reerka u dhis ninkii waa dhintay gurigii reerka u dhisay aawe biilkii ilmihiisa reerku u qoray aawe masaajidkay u sadaqeeyeen aawe sharaftii ammaantii u yeeshay aawe walaalayaalo waxa aan ku noolnahay camal shaydaan oo been lagu qurxiyey waa quracdaas maran oo wax joogala iyo wax daaqa iyo wax dega ayaad isku haysataan waa nugu yaryihiin kii horena waa bannaanya tacsiyaad ku wada jirtaan guryihiinniyaa dunsan dhibna uma aragtaan welina mid kale sii dishaana rabtaan waxaan leeyahay odayaashu waa dadaaleen kollay dhibaa haysta waa un ay raggeenaan leekaayeenna in colaaddu socotay waa u malaynaa ragga dhallinyarada halkaan jooga ayaan rabaa inaan farriin u diro iyo kuwa kalena daawo doona cimriga aabbayaashiin iyo adeeradiin dagaalka ku gaarina ku gaarinina shallayga ay qabaan maantana ha qabinina maantaad fursad haysataan aakhiro cid lagu soo ammaanay oo qabiil u dhimantay haddaa ogtihiin ku dayda waa okay waa fiicanta qof inta qof qabiil u dilay laleeya alla hela ninkii hebel ahaa jannadii meel fiican inta aayad loo helo sheekh aayad kor saari karo waa fiican tahay wada hawsha niman guriga ku helay oo ku tacbaday oo ku xoolaystay oo ilmahoodii wax ku barteen haddaa aragteen wada hadday beddelkeeda tooy qoomama tahay oo hooyadii wiilkeeda dhinta oynayso oo adiga walaalkaa waayo oynaysid oo midka cuuriyaankaahu shallaysan yahay maxaa jidkan ugu socotaa waxaan rabnaa bini aadam noolaan nahay caqliga iyo dareenka inuuna hogaamiyo ummadda ilaahay wuxuu garashada u siiyey inay go-aan ku gaarto
waxaan aaminsanahay marka qabiilinta isku yimaado uu ku tashado aan reer hebel ku duulno waxay ku ballameen aan caqliga iska qaadno aan been isku sheegnay ku heshiiye walaalayaalow caadifadda waa fahmaynaa hal maalin ma baxayso beenta waa fahmaynaa hal maalin ma baxayso shaydaanka laftigiisu markuu kugu bato oo guri kaa dhisto ilaahay waa dhici kartaa inuu iimaanka hal mar kuu soo dejiyo laakiin tartiib tartiibay u badan tahay bal horta meeshii aan galabta geedkaan intaanan imaan joogna meel ka duwan annagoo joogna caawa meeshaan aan ka tagno waxaan idiin sheegayaa oo ilaahay wuu ogyahay labada dhinacba waa la socdaa waxaad isku haysataan been waa brobagando waa been waa waxaan la taaban karin waa waxaan galabtay haddii faraha looga qaado qolo kastaa waxa ay dalbanayso aan wax ugu soo kordhaahu jirin wax uga halaaba maahane waxaan ogahay waxaa isku haysataan maanta qoladii faraha laga geliyo hal natiijo ay caaw la hoyanaysa ma jirto hal xabo ay la hoyanaysa ma jirto waxaa isku haysataan raganimo waa oo shaydaan qurxiye shaydaana qurxiye geesiga maanta meeshaan ay u baahan tahay nin shaydaanka hortegi kara waa nin shaydaanka ku hor ordi kara maaha nin shaydaanka inta ka soo horjeesta dhihi kara waaye walaalkay beenaad ku socotaa dulmiyaad ku socotaa nin odagiisa gacanta ka qaban kara waaye oday wiilkiisa gacanta ka qaban kara waa waxaan la yaabay meeshaan dhiigga muslimka sida loo fududaystay ma aayadahan la isku raacsanayn oo dad aayadaha khilaafsanaa jiro ma waxaad aaminsantihiin in qaybadan ka mid a hogaalan yihiin sidee ku dhici kartaa inaad masaajidkana aado halkaana qof walaalka oo muslim ah ku disho sidee isku qaban kartaa waxaa ka cararayso masaajidka ka gelaysid miyayna cadaab ahayn maxay yihiin waxa masaajidka loo galayo horta masaajidka maxaa laga rabaa masaajidka soo ilaahay naxariistiisa lagama rabo war ninka ragaya galabta inta go'aan qaatay yiraa colaadaas anaa go'aan ka gaaray anaa geesi anaa banaanka taagan qabiil ma ahi fidna ma rabo muxuu ka baqa miyaanay ahayn wuxuusan aaminsanayn ilaahay ballanqaadka u bixiyey inuu run yahay ilaahay ballantu qaaday inay run tahay miyuu qofkaasi ka shakisayo wuxuu isleeyahay waxaasniyow mise ballanta ilaahay waxaa kala weyn warka shaydaanka iyo muuqaalka shaydaanka oo aan natiijada lahayn dhallinyarada dhimanaysa miyaanay taariikhda aqoonin oo aanay ogeyn abtiyaashood iyo adeeradood meeshay ku dambeeyeen miyaanay ogeyn shalay kuwii dagaalkii magaaladan ka galay oo dhintay xaggey jiraan maantadan aan joogno shalay kuwii gala xaggey jiraan kuwa dhaawaca ahu oo isbitaallada yaallaa maxay ku dhaawacmeen kan dhintay muxuu helaa adduunyada waxa loo xarbiyaa waa inaad ama adduunye waxesho ama aakhira waxesho soo maaha dadka dagaalkan galaa dad adduunyana maaha dad aakhirana maaha labadaba maaha dad adduunye maaho tacab kama helaan oo nololo kama soo gasho oo nimanka dagaalkaas ku jiro aan labada dhagax ku soo arkin nimanka meeshan ugu foosha xun waa dadka dhulkan jooga nimanka ugu caataysan oo ugu rafaadsan oo dhibka ugu badan ka muuqda waa adduun halkaasay ka joogaan aakhirana cadaabuu ka joogaa waa kii sheekhu halkaas noogu sheegayo labada muslim ee seeftoodu kulanto labaduba waa ahlu naar marka ma xadiiskaadan rumaysnayn ma aayaddaadan rumaysnayn ma waxaanan ogeynaa jira walaalayaal waxaan warka kusoo gabagabaynaa waan warka kusoo gaabinaa annagu waa idinka tegaynaa waana idiin soo noqonaynaa waana idiin soo noqonaynaa hal midaan idinka codsanaynaa wiilashiinaana nabaddiinnaan rabnaa dan siyaasadeed kuma wadanno xisbi kama soconno xoolo kuma sidanno waxaana dhibayso dadkeenna inay isdilaan waxaana dhibayso tacsida guryaha taallo waxaana dhibaysa qaxa waxaana dhibaayo foolxumada iyo ceebta iyo aakhira beelka waxaan rabnaa xujada inaan gudanno waxaan idinka codsanaynaa idinkoo ka duwan meesha aan idinkaga tagnay meel ka sokaysa jooga inaan idinkugu nimaan walaalayaalow misena walaalayaalow adeerayaalow waxaan idinka baryaynaa nabadda qalbiga u fura dhib wax aad ka heshii weysaan idinma dhex yaallaan qalbigiinaa xiran qalbigiinaa nabadda ka xiran oo shakiyaa xiray shaydaanaa xiray afkaad nooga sheegaysiin shaydaanka inuu baxay ma bixo shaydaanku wuxuu baxaa geesiga nabadda marka la helo qolaa libinta qaada doontee ama qofaa libinta qaada doonee waana yaa la dooginaya waxaa dhihi jiray waa la doogayayaan la dacaroone taariikhdu xumaha iyo nabaddiidnimadu nin kastoo inaysa ku raacin ku dadaa gabagaba